أن يكون الرجل كثير الحياء قليل الأذى. مركا وحيابهن وحيابه كدسيني أن أخلاق ذا ونكسن هذا دونيسيد أخلاق ذا ونكسن إنا كسف سناتيد وإنا إنت كسف سناتها إن شاء الله تعالى. هذا إلهي سبحانه وتعالى وحكوف ذنيا إنا نقطة كريم الأخلاق. أن يكون الرجل كثير الحياء إنه قفك نقضو أما ننكو أما قبضو أي نقطو مid حشود بدن أما نين حشود بدن معناها حشودكو إنو حماته أجيديو حشودكو إنو مقرنسات أدب درادة يا أخلاق حمادة يا وحيابهاس أردن يا خلالاتك أجيديو. قليل الأذى ويهي مid دباتير دادك إنو دباتيو يا إن دباتديسا وكهيستو إن أيرتهي خصب تبلي آدم باتهي ممر وخلدمسا دباتو waa la iman kartaa laakiinse in dhibaatadaadu ay yar tahay aadan isku sii deyn oo markastaba aadan noqon qof wax dhibaateeya. kathiira salaahi mid dadka inuu heshiis dhex dhigo oo labada qof u heshiisiyo ay fara badan tahay aad iyo aad ay u fara badan tahay haddii laba qof oo ehelkaaga ah ama laba qof oo saaxiibadaada ah ama laba qof oo deriskaaga iyo laba heer oo deriskaaga ah haddii aad aragtid inaad markiiba bilowdid si aad labada qof heshiis iyo wanaag dhexdooda u kala dhexdhexi lahayd laakiinse labadii qof inaadan kala caydhin labada qof ama hays nacaan ama hays jeclaadaan ama waxa ka dhexeeyaan ama yay ka dhixin adigu waxaa la doonayaa in aadan jeclaan labada qof ama in aadan u ordin in aad kala caydhisid. waxa weeye akhlaaqda wanaagsan waa inaa labadii qof isu keentaa haddii isku xanaaqsan yihiin isku cadhaysan yihiin waa inaa isu keentaa haddayna isku xanaaqsanayn isku cadhaysanayn oo ay isjecel yihiin waa inaa isku daysaa waa aadan badahooda galli. saduuqul lisaan qofka akhlaaqda wanaagsan waa qof carabkiisu uu run badan yahay maaha markastaba haddaad doonaysid in ilaahay subxaanahu watacaala akhlaaqdaada uu wanaajiyo carabkaaga waa inaad runta ka sheegtaa beentana aad ka ilaalisaa. qaliilul kalaami kathiirul camal waa inuu yahay qofka akhlaaqda wanaagsan qof camalkiisu uu badan yahay hadalkiisuna uu yar yahay. macnaha haddii maanta camalka aad badisid oo camalka aad wax kastoo aad doonaysid inaad gaadhid oo aad camal u bedeshid oo aadan afka ka horan waxa weeye waa qofka lagu yaqaano qofkaas inuu akhlaaq wanaagsan yahay sababtoo ah dad far badan baa ku sheekeynaya waxaas sameynaya waxaan gaariya sababtoo ah hadalka badan wuxuu keenayaa in go'aamadaadu ay farbataan laakiin hadalkeer wuxuu keenayaa iyo camalkeena ku mashquushid go'aankaagu iyo umuurahaaga aad doonaysid inaad gaadhid iyo hamigaagaba inay yaraadaan laakiin camalka aad ma garanaysaa badisid sababtoo ah qofku hadduu maalintii ku hamiyo 3 wax inuu sameeyo hadhowtana uu camal sameeyo uu ku dadaalo 3daa wax muddo kastaba wixii mid kastaba muddadii lagu gaadhi lahaa uu soo afjaraya oo qofkaas waxaa laga yaabaa hadday waxyaalo dhow yihiin 2 bilood 3 bilood kadib wixii inuu soo dhameeyay hadhowtana 3 waxyaabood kale iyo 4 waxyaabood kale inuu niyeysto oo uu go'aansado sababta marka horeba isaga xoogaan yeestay wax yar niyeysay hadhow wixii yaraa buu iska dhameeyay hadhowtana wax weyn buu niyeysanaya ama wax kale laakiin qofku hadduu hadal badan yahay waxyaalo fara badan ayuu balan qaadaya waxyaalo fara badan ayuu sheegaya waxyaalo fara badan ayuu naftiisa ugu sheekeynaya in ay gaadhiso bilahan hadhowtana ma garanaysaa hadda wixii fara badnaa ma awoodayo inuu gaadho. marka qofku waa inuu noqdaa qof hadal yar camal badan waa inuu la yimaadaa sababtoo ah hadalka waxaad dhahaysaa in yar fakarkana in yar baa fakaraysaa inta kalena waxaa la doonayaa in aad ma garanaysaa camal samayso. haddaad tirahdid maalintii waxaan qaybayaa bug quraan ah haddaad tirahdid maalintii bug quraan aan qaybayaa ama 30 waraaqood oo cilmi ah oo aqoon ayaan akhrinayaa waa inaa isla markaa kaga bilowda intaa yar aad lahayd 30 waraaqood baan akhrinayaa ama bug quraan aan qaybayaa waa hadal yar waa jumlad yar wax yar bay ka qaatay waa jiri laakiin camalkii ayaa laga rabaa. qaliilu salali waa mid akhdaagiisu iyo gafafkiisu ay yar tahay qaliilul fuduli barran wusulan
waxa weeye fuduulkiisu iyo arrimaha uu iska galo qofkaasu waa inay yar tahay. macnaha dad baa arkaysaa waxyaabo aan loo dirsan ayay iska gelayaan. waxaa laga yaabaa waxyaalo aad iyo aad u fara badan inay yihiin, markaana waxyaabahaas aan loo dirsan qofku inuu iska galo maaha, shaqadiisana maaha, hamigiisana maaha, ciyaarihiisana maaha, waxyaabihiisana maaha. markaana waxaas aan lagu dirsan waa fuduul baa dhahaa. waxa weeye waad fuduul badan tahay, Soomaalidu waatay dhahan. markaana fuduushaas waxa weeye waa waxyaalaha dheeraadka aan lagu dirsan. haddii aad gashidna in ma garanaysaa aad wax yar ka gashid, wax yar ka taataabatid, in yaroo nasiixa, in yaroo waanaa, in yaroo tala, in yaroo meelahaasa, hadhowtana ay isaga soo laabatid. laakiin waxyaaba fara badan aan lagu dirsan mashaakilka ummadda dhex yaala, waxyaabahaas waxyaabo ma garanaysaa aadan ka sheekeyn karin, waxyaalo fara badan oo ma garanaysaa hadii aadan dhex geli karin baa jira. markaana qof kastaba ma garanaysaa umuuro gaaro waxaa laga yaabaa boqolaal wax ayaa ku furan. marka qofkii boqolaalka wax ku furnaa daadu iskama dhexgelaysid inaa qofkii nasiixa iyo waana yarsiisid maahan. laakiinse waxyaalaha fara badan ee adiga camalkaaga iyo dhaqankaaga iyo umuurahaaga aan ahayn waxaa la doonayaa inaad ka fogaatid. haddii aad gashidna inaad wax yar ka gashid, hadhowtana ay isaga tagtid. برًا وصولا محايلي تعمل بكسوية إن عمل لاتماتو إن أقونيو مقارنة يا عمل لاتماتو إن هدي شقي سنة الشقة هذه لاتماتو إن هدي مقارنة عملها أكون مشغول سنة ماشي أكون مشغول سنة إيه كل هذا أدونك هذا آخر هذا إن لاتماتو الدنيا برًا وصولا قف كسوة إنه يا قف بارئة وحنا حليلية إن بدن بكسو علنا قفكو إنه وحيريو صاحبتي إنه حيريو qoyskiisa qaraabadiisa inuu xiriyo, inuu xaas iyo caruur haduu leeyahay oo uu ka maqan yahay inuu xiriyo, in xitaa reerku xididka la ahaa inuu xiriyo, in uu saaxiibadii xiriyo, in ma garanaysaa macallimiintiisii iyo dadkii uu wax la soo dhigan jiray inuu xiriyo. waxa weeye waa akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan iyo fadiilo weey. marka adiga dhaqan iyo fadiilo wanaagsan ayay ku noqonaysaa, adiga akhlaaq wanaagsan bay ku noqonaysaa. barran inuu yahay qof baariya. innal abrara la fi na'im. ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri kuwa baariyaashu waxay ku sugan yihiin nicmo, ayay ku sugan yihiin nicmo ilaahi subhanahu wa ta'ala. dadka baariyaasha waa aragtay inta adduunyadana waa lagu amaanayaa oo ma garanaysaa waa la aaminsan yahay. aakhirana de waxay leeyihiin waxyaalo fara badan oo fadaa'ila oo jana ilaahi subhanahu wa ta'ala ayay galayaan. wafuuran sabuuran wafuur qof ma garanaysaa oofinaya balankii, balan buu ka qaaday qof wuu oofinayaa. sabuuran shakuura qof samir la imanaya oo dhibaatadii ilaahay subxaanahu wa tacaala u keenay ku samraya, oo nin raga ah oo weliba xitaa markuu ku samro haddana fadaa'ishii iyo waxyaalihii waaweynaa uu ku mashquulayo. shakuura iyo qof shukrinaya weeye qofka akhlaaqda wanaagsan. hadduu ilaahay subxaanahu wa ta'ala nicmo siiyo, nicmadii wuu ku shukrinaqayaa oo way ka muuqanaysaa oo uu sadaqaysanayaa oo waxyaalihii ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo uu u baneeyay ayuu nicmadii u isticmaalaya. nicmada hadduu ilaahay ku siiyo waa ina uu isticmaalo